kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya iyo caalamka oo aad noga barateen inaad ka daawataan bartaan aanu ku leenahay YouTube-ka qodobada aad daawadayaal muuqaalkan ku daawan doontaan waxaa kamid ah Ra'iisul Wasaare Rooble oo taariikh siyaasadeed oo cusub dhigay dhoolatusna ka sameeyay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya madaxweyne Laftagareen oo hub culus u qaybiyay beeshiisa kadib markii laga warhelay shirqool looga soo maleegayo Muqdisho oo lagu damacsan yahay in xilka looga qaado haddaba waa noocma hubka beeshiisa uu u kala qaybiyay madaxweyne Laftagareen sharciyaqaano cadeeyay in Cabdiraxmaan Cabdishakuur uusan waayi doonin xilkiisa xildhibaannimo kadib markii xil cusub uu shalayto u soo magacaabay madaxweyne Xasan Sheekh xiisadda siyaasadeed ee Somaliland oo cirka isku sii shareertay iyo kulan dhaxmaray madaxweyne Muuse Biixi iyo axsaabta mucaaradka oo fashil ku soo dhamaaday sidoo kale daawadayaal muuqaalkan waxaad ku daawan doontaan toogasho arday lagu laayay oo ka dhacday dugsi ku yaalo gobolka Texas ee waddanka Mareykanka qodobadaas iyo qaar kale oo faahfaahsan ayaa daawadayaal muuqaalkan ku daawan doontaan haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir oo channelkan subscribe saar si aad uga mid noqoto saaxiibada helo wararka aanu halkan soo gelino aynu ku horeynay daawadayaal madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Mudane Cabdilcasiis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa lagu soo waramayaa in uu beeshiisa hubkeyd u ahaa maamulka Koonfur Galbeed u qaybiyay kadib markii la ogaaday in Muqdisho laga soo abaabulayo muushin xilka looga tuurayo hubkaasi ayaa channelkeena uu ogaaday in lagu talagalay ciidamada Koonfur Galbeed ee soo dhameysto tababarka ay bixiyaan saraakiisha UK ila wareediyo ayaa waxa inoo xaqiijiyeen in hubkaasi oo u badnaa qoryaha fudfudud iyo rasaastooda sida AK47 BKM bustoolado iyo rasaas gebi ahaanba lagala baxay bakhaarradii ay ku jireen sida ay sheegayaan wararka aanu ka helayno Koonfur Galbeed ujeedada ka dambayso in hubkaasi uu galo gacan Maleeshiya beeleed ayaa waxa xiriir ay la leedahay guuldarrada siyaasadeed ee soo wajahday Laftagareen maadaama bay yiraahdeen uu aqoonsan yahay inuusan taageero ka haysanin beelaha Koonfur Galbeed isla markaasina muddaxileedkiisa uu dhamaad yahay sidaasi darteedna uu ka cabsi qabo kacdoon arrintan oo dood ka dhaxdhalisay shacabka iyo maamulkaba ayaanan jirin cid ka hadashay sababo la xiriiro baqdin ay ka qabaan in la bartilmaameedsado ama in ay xilkooda weyn doonaan si kastaba wasiirka wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka ee Soomaaliya Marwo Xaniifa Xaabsade oo kamid ah siyaasiyiinta ka soo jeedo deegaanada Koonfur Galbeed ayaa qoraal ay soo saartay waxa ay ku bidhaamisay sida ay wax u jiraan iyo waxa la isku hayo labada dhinac Cabdilcasiis Laftagareen oo hami weyn ka qabay in uu mar kale soo laabto oo dib loo soo doorto madaxweyne Farmaajo ayaa waxa uu hadda ka cabsi qabaa inay ku soo furmaan mucaarad xoogan iyadoo oo sanado badan lagu adkeysanayay nidaam ku dhisan awood sheegad iyo cabsi gelin Xaniifa Xaabsade ayaa waxa ay ugu baaqday madaxweyne Laftagareen inuu wax ka barto muddo kororsigii hore uu ugu fashilmay baarlamankii tabnaad ay ku doonayeen in ay waqtiga ku dheereystaan madaxweyne Farmaajona 2 sano ay xukunka ugu kordhiyaan maalmaha soo socdo ayaa laga yaabaa in xiisadda magaalada Baydhabo ay ka sii darto iyadoo qaar ka mid ah siyaasiyiinta Koonfur Galbeed ee ciilka u qaba Laftagareen ay bilaabeen abaabul xilka looga tuurayo maadaama Farmaajo oo uu ku dabagambanayay xilka laga qaaday Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Rooble ayaa waqti la qaatay qaar ka mid ah shacabka Muqdisho iyagoo ku boogaadiyay dadaalkii uu ku bixiyay qabsoomidda doorashooyinka dalka Rooble ayaa sawirro la galay dhalinyarada uu kula kulmay qeybaha uu ka tagay Muqdisho waxaana uu ka wareystay xaaladaha ay ku sugan yihiin bulshada qeybaheeda kala duwan Ra'iisul Wasaare Rooble ayaa la soo baxay saameyn siyaasadeed oo xoog leh isagoo oo soo shacbaxay magaciisa sanad iyo bilooyin ka hor isla markaasina lagu bartay arrimaha doorashooyinka uu dalka soo gaarsiiyay inkastoo Rooble lagu sheegay inuu lahaa mucaarad ka soo horjooday bilihii ugu dambeeyay
dhanka nabad iyo nolol iyo weliba xukunkii farmaajo haddana waxa uu qayb ka ahaa soo saaridii xasan sheekh maxamuud oo 15kii bishan loo doortay madaxweynaha Soomaaliya. Roble oo dalka dib ugu soo laabtay kana yimid isutaga Imaaraadka Carabta ayaa abuuray fursado badan oo siyaasadda ah iyo weliba saameyntiisa muuqato, waxaana laga yaabaa in xil weyn uu ka helo dowladda uu soo dhisayo madaxweyne xasan sheekh maxamuud. sharciyaqaanada Soomaaliyeed ayaa ka faallooday xilka loo magacaabay Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka 11aad ee Soomaaliya. mudane xasan sheekh maxamuud madaxweynaha Soomaaliya ayaa xildhibaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame u soo magacaabay ergeyga gaarka u qaabilsan arrimaha gurmadka abaaraha Soomaaliya. magacaabista Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaana waxaa ka dhashay hadalhayn badan oo ku saabsan in magacaabistaasi ay keeni karto inuu Cabdiraxmaan lumiyo kursigii xildhibaannimo maadaama dastuurka ku-meel gaarka ee Soomaaliya uusan xildhibaanka u ogolayn xil ama wasiir. sharciyaqaano la hadlay channelkeena ayaa waxay sheegeen in shaqooyinka dastuurka u diidayo xildhibaanka ay yihiin kuwa ka dhigayo shaqaale rasmi ah sida danjire, gudoomiyahayad, taliyahayad amni iyo weliba maareeye mashruuc rasmi ah oo laftiisa wareegto lagu aasaasay. sharciyaqaanada ayaa sidoo kale waxay ku doodayaan in xildhibaanka uu noqon karo xubin ka mid ah guddi gaar ah oo markaasi xaaladda la tacaalayo ama inuu xiriirin karo gurmad iyo adeeg kale oo dadka loo fidinayo. dhanka kale xog aanu helnay ayaa sheegaysaa in madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu magacaabista Cabdiraxmaan Cabdishakuur kala tashaday gudoomiyihii hore ee golaha shacabka Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari iyo gudoomiyihii hore ee maxkamadda sare Ibraahim Iidle Suleymaan. labadan mas'uul ayaa u cadeeyay madaxweyne xasan sheekh maxamuud in xildhibaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame sharciyan xilkaasi uu u soo magacaabi karo. hase ahaatee dadka qaarkood ayaa waxa ay u arkaan in Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame xilkaasi uu u magacaabay madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu ku degdegay islamarkaasina sharciyan xilkaasi uu waayay shalayto. qaybihii dambe ee warkeena ayaanu soo gaarnay daawadayaal. iminkana waxaa cirka isku sii shareeray xiisadda siyaasadeed ee ka taagan Somaliland iyadoo oo la filayo in ay ka dhacdo dhowaan Somaliland doorashada madaxweynaha. kulan dhexmaray madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi iyo madaxda xisbiyada mucaaradka ee Somaliland ayaa ku soo dhamaaday fashil kadib markii la isku mari waayay qodobadii looga hadlayay. wadahadalkan ayaa diiradda lagu saaray qabsoomidda doorashada madaxtooyada Somaliland oo loo madalsan yahay bisha November ee sanadkan 2022 balse madaxweyne Muuse Biixi ayaa lagu eedeeyay inuu doonayo in muddo kordhin uu samaysto. gudoomiyaha xisbiga UCID injineer Faysal Cali Waraabe oo ka warbixiyay kulankaasi ayaa sheegay in Muuse Biixi ay kala kulmeen caro iyo weliba in uu eedeeyay mucaaradka, isagoo intaasi ku daray in kulanka dhexmaray uu ku soo dhamaaday natiijo la'aan. waxa uu sheegay in Muuse Biixi uu damacsan yahay in dib loo dhigo doorashada madaxweynaha Somaliland taasina marnaba aysan ka aqbali doonin. waxaan ula tagnay anagu qodob baan la tagnay oo ah 5 qodob ee ah rukunka u ah in doorashada madaxweyne waqtigeeda dhacdo. oo waxa uu muhiim ah in horta madaxweynuhu committee ku yahay in doorashadu waqtigeedii ay dhacdo November 13keedii. si u dhacdana rukumadii domination-ka oo ka mid tahay commission-ka oo hadda shaqadii la joojiyay uu geliyana magaranayay guddi baaris awiri iyo inuu magaranayay uu sameey diiwaangelintii oo heed in la bilaabo ayaa qodoban ula tagnay. waxaan kaloo laga tagnay in faragelinta madax banaanida commission-ka la ilaaliyo sida caadi ahaan jirtay iyo xilka agaasimaha guud ee commission-ku oo ahaan jirin qof la soo appoint gareeyo shaqaalaheed ahaan jiray qof xirfad yaqaan ah oo la baahiyo oo commission-ku si madax banaan oo dalbado. intaasaan wada tagnay. nasiib darro waxaan u tagnay horta madaxweyne careysan oo moodidina isaga la dulmiyay oo waliba aniga dulma badan iga sheeganaya. anigu markaa madaxweynuhu qorshihiisii ahaa inuu ururada furo bisha magaranayay
June 26 ayaa ka go'need marka madaxweyne waxaan tahay madaxweyne qorshihiisii uu dhigtay daafacaya laakiin aan ka muuqan madaxweyne flexible oo u diyaara in la isriixo si ku noolaan jirnay magaranaysaa wada tashi iyo consensuskii tanaasulka ku soo dhex maarnay aan u diyaareen ayaanu tagnay caawa madaxweynehan arkay madaxweyne diyaar u ah wada hadal iyo wada jir iyo wada tashi iyo doorasho inuu qabto madaxweyne uma diyaaraha ugu dambayntiina daawadayaal ilaa iyo 18 carruur iyo macallin ayaa lagu dilay toogasho nin hubaysan uu ka fuliyey dugsi hoose oo ku yaalo gobolka Texas ee dalka Mareykanka sida ay sheegeen saraakiisha gobolkaasi gabanaha gobolka Texas ayaana waxa uu sheegay in tuhmanaha weerarka oo ahaa 18 sano jir deganaa magaalada Uvalde ee gobolka Texas toogasho ay ku dileen saraakiishii u gurmatay iskuulka weerarka ayaa ka dhacay dugsiga hoose ee ku yaalo magaaladaasi oo 85 mayl galbeed kaga beegan magaalada la yiraahdo San Antonio tuhmanaha ayaa magaciisa lagu sheegay Salvador Ramos sida ay ku warameen booliiska 3 qof oo kale oo dhaawac ah ayaa isbitaal la dhigay waxaana la sheegay in xaaladooda ay halis tahay madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden oo shir jiraa'id ku qabtay aqalka cad ayaa sheegay in markii uu madaxweynaha noqonayay uu rajeynayay in uusan qaban shir jiraa'id noocani ah waxaana uu sheegay inuu aad uga xun yahay dhibaatadii soo gaartay dadka shacabka dhalinyarada u badnaa madaxweyne Biden ayaa sharci dejiyaasha Mareykanka ugu baaqay inay xanuunkan ku bedelaan ansixinta sharci xakamaynta haysashada hubka oo caadi ka ah Mareykanka guud ahaan daawadayaal intaas ayaanu ku soo gabagabeynaynaa muuqaalkan aad ku daawanayseen wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya iyo caalamka tani intaanu daawadayaal dib ugu kulmi doona muuqaalo kale waxaanu iminka idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo